xaflad lagu soo dhaweynayay laba ciyaartoy oo kamid ahaa ciyaartoydii kubadda kolayga ee berisamaadkii oo kala ahaa Lajan Maxamed Aadan Xirsi Madoobe iyo Cabdiqaadir Marayare. haddaba xafladan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka horumarinta sportiska Puntland. xafladan weyn oo lagu soo dhaweynayo ciyaaryahanadii wadanka Soomaaliya berisamaadkii madbacadda qaranka iyo qaranka Soomaaliyeed oo kala ah Maxamed Aadan Xirsi Madoobe iyo Cabdirasaaq Aadan Warsame Marayare oo ka yimid wadanka Canada. marti sharafta noogu timid xafladda tan quruxda badan ee aan ku soo dhaweynayno laba ciyaartoy oo heer qaran ah Madoobe iyo Cabdirasaaq Marayare oo ah ciyaaryahantii berisamaadka Soomaaliya ayagana ay u sii socdaan dalka Soomaaliya oo gudbinayaan aqoonta iyo isboortiga ay u leeyihiin. waxaan caawa halkan isugu nimid inaan halkan ku soo dhaweyno laba ciyaaryahan oo aad qaali u ah oo runtii ciyaartoydii berisamaadkii Soomaaliya kamid ahaa isku naadiga u soo ciyaareen qaranka qaar oo soo Madoobe oo soo ciyaaraan jeclahay Cabsaaqna oo kulay naadiga madbacadda u soo ciyaaray labadooda runtii waa laba nin oo legend ah runtii waxaan leeyahay ku soo dhawaada London. Welcome to London. waa rag soo halgamay wadankii intuu dhisnaa qiimo ku lahaa marka inaan ilownana mar walba waa xasuusanaynaa waana soo dhaweynaynaa. waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan waxaan idinku soo dhaweynaynaa cariga Landiga meesha aad ku socotaanna Ilaahay ha idin nabadgeeyo soo noqod wanaagsanna waa idin sugaynaa si noqodkiinana. anoo ku hadlahaya taaliyada Puntland magaceeda gabdhaha welcome aad baan ugu faraxsanahay inaad aqoontiinii hore aad u gudbinaysaan wadankiinii. xafladan aan ku soo dhaweynay labada legend Master Maxamed Aadan Xirsi Teera Madoobe iyo Cabdirasaaq Aadan Warsame Marayare waa laba nin ugu dheer meel aan ku wada dhalanay ku soo kornay si wanaagna caawaan u yeeshay inay halkan London isku qaabilno. sharaf bayno tahay London ku soo dhawaaw anoo ku hadlaya magaca fanaaniinta Soomaaliyeed oo Ingiriiska gaar ahaan howlada Waaberi kooxda Jenya ka Jenyo labadiinan insha Allah sidii uu sheegay macalinka Macallow waxaan jecelnahay markii aan wax qabadkiin aragno waan hubnaa in wax qabanaysiin inaad dib noogu soo noqotaan London oo dhan inay insha Allah airport idinku soo dhaweyso. ku hadlay magaca Olimpika Soomaaliyeed waa muhiim in dhalinyarta Soomaaliya meel joogto wax loo qabto runtiina wax qabadku wuxuu ka bilaabmaa hooyga guriga marka runtii waa aad baan u farxay marka la yiraaco waxaad u socotaan dhulkii anigoo ku hadlaya magaca Bahar Sports Stratham sidoo walaalkii Zolo noo sheegay waxaan rabaa inaan u soo gudbiyo soo dhaweynta iyo soo dhiibeen walaalkii Madoobe iyo Marayare. waxaan idin leeyahay welcome to London. waxaan leeyahay Madoobe iyo Cabdirasaaq Marayare waxaan leenahay aad iyo aad baa ugu faraxsanahay imaashaha maaragta inta nimid. waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada UK gaar ahaan magaalada London intaan qofooda caawa idin joogto waqtigiin soo siisay waa asxaabtiini saaxiibadiin walaalihiin Soomaalinimo. waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladda lagu soo dhaweynayo walaalihiin Maxamed Aadan Xirsi iyo Cabdirasaaq Aadan Marayare. maanta farxadda iga muuqata sida ay soo dhaweyseen aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaan u imid waxay tahay waa waqtigii aniga aan isiri wixii aad taqaanay ama aad garanayso professionalka ku lahayd wadankaagii hooyo ula noqo soo bar dadkii wax soo tus adigoo macnaha isheega level sare ama sida wadamadan aan ku noolnahay kale nidaamkooda oo kala gee sida wadankii uu anfaco. waxaan idin ka codsanayaa oo idin tugaya islaam ahaan inaad ii duceysaan oo ducada igu daba dartaan markaan soo noqonayana inaan idinku soo hormaro oo aan idin tuso wixii aan soo qabanayay. ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay Madoobe iyo Marayare ciyaartoydii hore aan aad u jeclaa inaan ku soo dhaweeyo caawa magaalada London aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Maxamed Xasan Maxamuud Boocame Kalsan TV magaalada London.